يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب ابن مبارك ماء زمزم مركو عبا يبو رنجري يا رب رسولك أقودكوني عليه الصلاة والسلام وحاويري بيها زمزم كواوحي اللوني ودي اللو عبا لقاه الآية إلهو عنك وحانوني يونيا أونك مالك قيامة هنا ديك قبت بادسانوني يونيا أبو رنجري مال باو عدد سقع آخرتها كويني عبد الله بن مبارك عراق بو سوق لبغداد في خلافة هارون الرشيد ما قال دي بغداد ودن بعد دقاقدي مركاسا زبيدة او هارون الرشيد حاسكي ساهي ايا وحي كتري حرس كيجيبه كتري عيدنك الى ليني ما قال له ما انت بوق بدنا محا كجرا وحال عالم من علماء خراسان علماء المسلمين عالم كمله ايا ما قال له ما انت سوق له يقول عبد الله بن مبارك قصرك بقرك هي مسجد كاسكو بجسنا مساجد الجامعي بو سو غلي درسي بو مركبه بلابا بقول كن اوقف دد دو با دغيسنيسا بقول كن اوقف هل مركلي هندي سوداي بقول كي كن waxay uga duceeyeen qalbiga iyako oo la yarhamuka allah guuxi majmac inta le ka baxay ayaa qasriga boqorka gaadhay baa leeyahay qayladii dhawaaq yarhamuka allah zubayda sarakacday waxay tii waa maxay qayladaasi dhawaaqa waxa la yiri boqor sheekhi baa hindi soodo loo duceynayay iska jiifada buu iska jiif markaasay hinaastay هارون الرشيد هردي لبتا قبطي كتري ذلك ما لا حكومة مثل وداد كان كيمي دي فرس فارس وداد كان عجمي ودك حكومة صادقة حكومة اسلام مركاسو ويدي حرسي وريا يمد يا يمد عبد الله بن مبارك ما ودك سوق علي مركا ابو الزبيدة اسكجيف انكو قلفتان حكونا علماءنا قلوبتا حكومتا ابو كير انكو قلفتان حكونا قلفت عالم قرآن قلبي وحكم قلوبتا كحر العلماء الربانيين تا marka walaalayaal diinteena haddaan ka shaqeyno oo diinteena ku dhaqanno oo diintu nolosheena ka muuqato oo diintu dhalinyaradeena ka muuqato oo diintu mujtamaceena ka muuqato waa janno ku sugan nolosheena adduunyada noo noqonaysa janno ku sugan inaga maanta Soomaali haddaan nahay diin marka laga hadlayo waxa markaaba maskaxdeena ku soo dhacaysa waan tukanaaye xaakaloon la naga rabaa salaadu ma meesha diintu laga bilaabo ma soo meesha ku dhamaato nin baa yiri waan islaamaya halkeen uga bilaabaynaa soo qubayso tawxiidka loo laqini maxaa ku xiga salaadii haddii uu yiraahdo soo diintii igama dhanna maxaan odhanaynaa may haddaad bilowday salaadu waa meesha laga bilaabo salaadu waa bilow dhammaad maaha muslimka jadiidkaana waxaan ku leenahay maya diinta haddaad bilowda sheekhow weli waxba kaama dhowo muslimkeennii islaamnimada ku dhashayna marka diin lagala hadlo waxa uu leeyahay waan tukadahay maxaa laga rabaa صلاة وبلو لبا حديث وهو صحيح حديث نوح وكتسنا يا ماشي دين الإسلام كان لقى بلام حديث نوح وكتسنا يا هل دين الإسلام كو أي قدام بس دين تكون مات بني الإسلام على 5 بني الإسلام دين الإسلام كان وحلقوا كرد السيب النبي يقول لي شمتير وشهادتين كان وصلاة وزكدا وصونكا وحشكا اسلام نمدا شنتنا هيسا شنتن تير دين الاسلام كاي هيا حديثك وحو تسينيا وهلك دينتنا اي كبل ما يسويان او شنتن اركان الاسلام وا بلوغي ويان بلوغي بي جوغان هل حديثك دنبنا وحو شيغيا بعثت لاتمم مكارم الاخلاق بالنبي انيغا ادونك waxa la ii keenay buu nabigu leeyahay dadka noloshooda inaan diinta akhlaaqda teeda wanaagsan ku dhameystiro
aniga waxaan la ii keenay adduunyada buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam dhaqanka wanaagsan in dadka noloshooda aan ku dhammaystiro oo dhaqanka wanaagsan waxaa ka mid ah inuu qofka muslimku alla ka baqu yeesho inuu xaaraanta iska ilaaliyo inuu beenta ka dheeraado inuu ballanta ilaaliyo inuu cayda iska ilaaliyo inuu xanta daayo inuu tuugada ka dheeraado inuu zinada ka dheeraado inuu caaqil waalideyn uusan noqon waxaasoo dhan akhlaaqdaa xun oo dhan diinta islaamku way kaa ilaalinaysaa maxay markaa diinta islaamku ku amraysaa akhlaaqda wanaagsan bay diintu kugu yeedhaysaa akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid ah sida adigu aad jeceshahay dadku inay kuula dhaqmaan adigu ummadda ula dhaqan sidaas okaas been in laguu sheega ma rabtid adna dadka been ha u sheegin ballan in lagaaga baxa ma rabtid dadka adna ballan ha kaga bixin in lagu dhibaateeye ma rabtid adiguna ummadda ha dhibin in lagu caaye ma rabtid adiguna ummadda ha caayin in lagu xante ma rabtid adigu ummadda ha xaman in lagu dile ma rabtid adiguna ummadda ha dilin in waxyaalo sharaftaada dhaawacaya lagu geysto ma rabtid adiguna ummadda sharaftooda dhibaato ha u geysan sida aad jeceshahay dadku inay kuula dhaqmaan adigu ummadda ula dhaqan waa ka akhlaaqda wanaagsan طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى طلاقة الوجه قفك مسلمك وأنه هذا قف مر والب وجه فرن أو بشاشة فرحسن كف الأذى الدين قيسي عرب قيسي ومدى أنا كل بين لا ولا ومدى كهي سنة بدل المعروف ذاتك إساق دباتة وقيستنا wanaag buu u sameeyaa wanaag mar walba wanaag baa laga dheefaa isaga xagiisa dhib baa lagama arkaba waxtar uu leeyahay waxtarkiisa la arka على كل مسلم صدقة بنبي أفكستو مسلمة واقو مركو أبريو صدقة لقربا جركي سينو كبحي أبو رسولك صدقوا مركاسين سحابة الآدم إن لم يجد وحو صدقة يستقفكو هدولن هيسنة حاد صدقة يسنة مركز إلا الجوارح دن إلها كسيي باكو كو جديو كله صدقة دا كدب أرجن ونعمت ده صدقات كبح مقالك ونعمت ده صدقات كبح قعانتني حب ونعمت ده صدقات كبح صعدك ونعمت صدقات كبح هذا الكوان نعمت صدقات كبح حبين كستو بني آدم كجركي سكوت الله ونعمت إلهي بكسيي شريعة الإسلام كوحي كلا داعي واقو مركو بريو وانا جوارح دا إلهي كسيي وانا صدقات كبحسا مركز السحابة دول أحضرنا هيسن مركز النبي يقول فيعمل بيده قعنتي سو شقاكو دونان قفك مسلم سقا شقا سميسن نفتي سنة وحبوط تري ومدنا وحبوط تري ورسولكم مال بفريسن لما أقول شقوا سمين السقونا وحبوط استري ومدنا وحبوط تري إن لم يستدي حدو شقا كريم بقى مركب النبي يقول يعين ذا الحاجة الملهوف قفك الدباتيسن إلا واحد قد بيلا الدبايو أما إساقوا بالدباتيسن بأكال من أقرقاري هدو مظلوم يهينا وردول ميقا كدا يبورا هدو إساقوا الدباتيسن يهو دب شاقنا يانا أقرقاري أقرق دوكسن مركز الصحابة دلوقتي إن لم يعمل هدونا سدا سمينا مرقاب النبي يقول يأمر بالخير دتك وناك فري دتك خير كوش يالي دتك وناك أبو يالي دتك مساجد أبو يالي دتك صلاة أبو يالي هدونا سمينا شركي سوء مدى مال كلا فريسان وشركي سوء مدى كحيسان انت وصدق أبو فلم ورسولك هذا وحتر أمد أويه لنا إنن بشريعته كلها لاي
sharka ilaahay adiga kugu abuuray ummadda meel kala fadhiiso adinkaagana ha ku dhibin carabkaagana ha ku dhibin muslimku waa muslimkee waa muslimka muslimiinta kali adinkiisana ay ka nabad galaan carabkiisana ay ka nabad galaan buu nabigu yidhi qofkaasaa kamala muslima akhlaaqda markaa wanaagsan taqwada ayna amraysa markaas taqwa ilaahay ku abuuray si fiican ula mucaamalo khalqigiisana si fiican ula mucaamalo marka haddaan sidaa diintu ayna leedahay u noolaana walaalayaal waxaad ogaataan adduunyadan intaan joogno waxaan ku jiraynaa markaa janno nolosha ciriirigaan ka baxaynaa faqrigaan ka baxaynaa abaarahaan ka baxaynaa qabyaaladda ayaan ka baxaynaa ducfiga ayaan ka baxaynaa dulliga ayaan ka baxaynaa qaxootinimada ayaan ka baxaynaa addoonsiga gaalada maskaxda naga addoonsadeen baan ka baxaynaa maskaxdaan ka xoroobaynaa ilaa maanta muslimku maskaxda xor kama muslimku xor maaha maanta dhaqaalahaaga xor uma tihid oo tacliintaada xor uma tihid oo caqligaaga xor uma tihid oo waktigaaga xor uma tihid oo maamulkaaga xor uma tihid maanta maamul kastoy dowladaha muslimiintu samaystaan gaalaa dusha ka maamulaysa maamul xor ma jiro caalamka haddaa laakiin ilaahay u soo noqono oon xadhigga ilaahay qabsanno oo diinteenna ilaahay aan u soo noqono diinteennu sidayna leedahay aan u soconno ilaahay baa xorriyad taamayna siin xorriyad waa maxay xorriyad diinteenna aan ku dhaqmi karno ku baran karno kaga shaqayn karno taladeenna ku socon karno ayaa ilaahayna gaadhsiin doonaa insha allah dhahada insha allah dhahada dee ummaddu maanta waxay u baahan tahay markaa dadaal in la dadaalo in dadaalka diinta culimo keliya lagu daaya maaha macallimiinta keliya in lagu daayana maaha diinta dadaalkeega waxay culimmadu leeyihiin ummaddan oo dhan baa laga rabaa ummad oo dhan ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii wasubxaana allahi wamaa ana min almushrikiin qul haadihi sabiilii yaa muxamed baa ilaahay ku leeyahay qul haadihi sabiilii waxaad ku tidhahdaa ummaddaada waddadaydii waa taa oo dariiqaygii waa kaa dariiqadaydii waa taa waa dariiqadee adcuu ila allah dadkan xagga ilaahay ugu yeedhaa amar weeyaan dariiqadaydu waa taas oo dariiqadee dadkan xagga ilaahay ugu yeedhaa calaa basiiratin anoo oqoon u leh oo xujo cad u haysta oo ku kalsoon oo yaqiinsan inay tahay dariiqaasi u yahay dariiq xaq ah diintaas ummadda aan ugu yeeraya inay xaq tahay waan garanayaa weeyaan aqoon baan u leehay kalsooni baan u leehay ayaana yeedhaya ana waman ittabacanii qof allii qofkii aniga i rumeeyey ee i raacayna uu yeedhayaa baa dadku xagga ilaahay ugu yeedhaya war dadkii ilaahay nebiga raacay ma nahay mise ma nihin ma nahay mise ma nihin marka inaan diinteenna dadka ugu yeedhno muslinkana salaada ugu yeedhno muslinka maskiidka ugu yeedhno muslinka cilmiga ugu yeedhno muslinka masaajid iyo khayrka ugu yeedhno gaala hadday jirtana in ag joogtana inaan dacwadda gaadhsiino waayo muslimiintu waa ummat alijaaba gaaladuna waa ummat addacwa muslinkii ayaaba maanta dayacanba soomaaliyaa tirada ninka tiisa dar yeelayba iyo takalla ku dar teeni baa dayacanba maanta muslimka tuulooyinka tag oo miiga u bax oo masaajidda baldhex mar inta tukanaysa iyo inaad intaana tukanayn maanta imaa badan intaa tukanayn baa inta noloshooda diini ka muuqato iyo inta diini ka muuqan waxaa badan inta diini ka muuqato waa yar tahay maanta marka diinta in la beero loo baahan yahay in laga shaqeeyo in la isbaro in la fidiyo in waqti lagu bixiyo oo dhaqaalo lagu bixiyo oo caqli lagu bixiyo saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin diintan dadaalkayga umay kala hadhin taajirkooga iyo faqiirkooga
odaygoogi iyo dhallinyaradoodu odayaalkoogi iyo dhallinyaradoodu haweenkoogi iyo raggoogu siiraday ku wada taallaa diinta dadaalkayga saxaabadu umay kala hadhin marka zamankan maanta innaka zamankeeni weeyaan nabigu sal alla ly slam xajat alwadaac markuu la dardaarmayey fi saxiixayn wuxuu laa nabiya bacdii walaa ummata bacdi aniga nebi igama dambeeyo ininkana ummad inigama dambaysee kiina maanta xaadire halkaa ila joogay shaahidkow kiina magagaadhsii buu yidhi war ma diray ummaddiisa nebigu sama dirin uu diray uu shaqaaleeyey markaasuu u duceeyo wuxuu yidhi ka maanta aniga ila joogow kiina magagaadhsii iga guda buu yidhi xilkaa ilaahay hayni naxariiste iga guda xilkaas marka xilka allah ina wada saaran dadkeenu waa dad dhow ma fogo dadkeenu dhallinyaradeenna odayadeenna akhyaarteenna haddaan dadkeenna gacanta soo qabanoon masaajidda iyo dacwadda iyo khayrka ku soo xidhno waa dad aad u dabacsan weeyaan dee inaan wakhtigeenna firaaq aan haysanno ilaahay dartii aan u wada baxno oo jamacadada ilaahay dartii u baxaya aan lugta ku darno ma wada niyoonnaa yaa niyooda bal gacantaa taago iska taaga gacanta de anu gacanta goosan maayo إن شاء الله نعم إن شاء الله نعم الله أكبر هل قصان كسو قبين نن قيس وحو كرنا الشيء مال قبينا أو وذا قالع أو إسلامي إن مدى إسلامي مدو قرسناي ويدي بأوقاتي waddanku ku nool yahayna waa wada gaalo dadku waa wada gaal hal muslim ma joogaba bal qofka islaamnimo lagu tuumo waddanka way ka saaraanba hooyadii baa tiri waan ku ogaaday inaad diinta islaamka aad gashay cuntadeeda ha cunin bay ku tiri kii hooyadii isagoo la yaaban ayuu aabihiina ku yidhi aqalka igu dhaaf meelahaasoo markaa banaanadu iska seexdaayo maqaaxyaha wax ka cuncunaayo waa wada gaalo waddankuu joogo dhan waa maal dhegayso isagoo maalin aad u rafaadsan oo gaajoonayo oo tacbaana oo nafti unaynan ka dhicin ayaa laba nin oo askaroo dhar cada u timiday waxaa la boqorkii waddanka noo kaa soo diray inaad islaamtay baan maqalay laba mid kala dooro imaa inaad islaamnimada ka soo noqotood gaalnimadii ku soo noqoto imaa inaad dalka ka baxdo ninkaa maxaad kula talin lahaydeen ya waddanka uu u baxaayo waa waddan islaam ah hal qof kama yaqaano ninkani waa nin dhallinyaronimadiisii ku soo barbaaray raaxo iyo nimco iyo barwaaqo rafaad iyo gaajo weligii maba aragba 24 saaca loo qabtoo la yidhi imaa inaad dalka kaga baxda 24 saaco waddanka nin muslima ku noolaan maaye imaa inaad diintii gaalnimadii aad noola soo noqoto ninkaa tale maxaad u soo jeedin lahaydeen ma inaan nidhaahno islaamnimadood ku sabirta ayaa kuu khayr badan adduunyada nolosheedu waa in yar imtixaan baa kugu socda dadkii horeba marka islaamaan saasaa loo dhibi jiray iska adkayso oo iska sabir oo waddanka ka bax oo waddannada aad tegi doontaa ilaahay dad wanaagsan kuu bixin doonaayo ilaahay ku dayici maaye iska bax baad odhanaysaan mise waxaan kula talinaynaa rafaad iyo gaajo iyo safar iyo daranyo ma karayside diinta islaamka iskaga tego gaalnimadaada iskaga noqo oo barwaaqadaada iskaga noolow midkaad odhan lahayd si fiican bal u jawaaba dee reer gabiilayo maxaa odhan lahayde ninka waxaan warqadda ugu wada jarnay inuu diintiisa ku adkaysto uu sabro uu sugnaado waa imtixaan yar uu ka bixi doonaa uu dalka iskaga baxo ilaahay baa u gargaari doona iska soco saasaa isku wada raacnay soo maa bal ninka sidaa loo gacanta taag hadda dhegaysta ninkaa 40 cisho maaha waxaad dirteen 4 biloodna maan dirin imsaad dirteen islaamnimadana weli waxba kama yaqaanaba oo qisadii nebi ayuubna weli laguma akhrin dushiisa
saxaabadii nebi maxamed rafaadka diinta u soo mareen loogama sheekayn waa muslim jadiida oo barwaaqo ku koray kulligeen waxaad ku xakunteen ninka inuu dalka dhaafo uu diintiisa ku sugnaado soo sidaa ma inageenna boqolkiiba boqol wada muslimiina jadka jad dad muslima ka soo jeedna haddaan caawayn idhaahdo diinteennii waa taasoo mujtamaceennii dhallinyaradeenii maanta markaad eegto badankood salaadii iyo khayrkii iyo masaajidii way ku yar yihiine si diinta shaqadeeda aan u soo tababar qaadanno innaguna fadhiga masaajidda iyo khayrka dhegaysigiisa aan mujtamac fiican u raacno oo nafteennana soo islaaxinno dadaalkaa diineedna qaybteenna aan uga soo qaadano 4 bilood hadda wada baxa haddaan idhaahdo meega yeelaysa